wadiyaal halkani waa janalka wararka maanta ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa kamid ah wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya oo ka hadlay howlgallada ciidanka militariga Soomaaliya ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Dhexe dawladda Bahrain oo si adag u cambaaraysay qaraxii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kuna tilmaantay mid argagixiso madaxweynaha Jubbaland oo sameeyay magacaabis cusub kadib la tashiyo uu la sameeyay madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Jubbaland iyo qarax miino oo ka dhacay ka soo horjeedka iskuul uu ka socday imtixaanka sideedaadka oo ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikii aadna u diyaar garooba daawashada iyagii oo inta ka dhameystiran waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay 7 bisha 6 sanada 2021 haddii ay tahay markii kuugu horreysay soo booqatay channelkeena ha ilaawina subscribe tiraad kadibna aad furatid calaamadda gambaleelka si ay ku soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheer gareynaya baraha bulshada inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa ka hadlay howlgallada ciidanka militariga Soomaaliya ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Dhexe wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa waxa uu ka hadlay gulufka militariga ee ciidanka xoogga dalka ay ka wadaan gobolka Shabeellaha Dhexe kaas oo ah mid lagu wajahayo xubnaha ka tirsan al-shabaab ee ku sugan gobolka wasiirka ayaa tilmaamay in howlgalkan ka socda gobolka uu yahay mid si weyn loo qorsheeyay isagoo intaas ku daray in goobo badan lagala wareegay al-shabaab oo in badan ka arriminayay wasiirka ayaa intaas waxa uu ku sii daray in howlgalkan uusan ahayn mid ku kooban gobolka oo kaliya ayna jiraan gobollo kale oo la qorsheeyay in howlgalkan mid lamid ay ka sameeyaan ciidanka militariga Soomaaliya kuwaas oo xilligan la soo baxay awood aan hore loogu ogeyn howlgalkan waa mid si ballaaran loo qorsheeyay cadawgana meelo badan ayaa looga qabsaday dhibaato xoog leh waa uu soo gaarsiiyay howlgalkan intii uu socday waan aaminsanahay cadawgan dalkeena iyo dadkeenaba in uu dhibaato weyn ku hayo ayuu yiri wasiirka Shabeellaha Dhexe oo kaliya maahan ee meelo kale oo badan ayaa jira oo la qorsheeyay in howlgalkan iyo kuwa lamidaba laga sameeyo isla markaana cadawga looga dulqaado deegaanada ay gacanta ku hayaan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri ciidamada uu taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawa uu horkacayo guulihii ay meesha ka keeneen iyo dadaalkii ay galeenba waan ugu hambalyeynayna waxaan kaga mahadcelinaynaa waajibkii saarnaa oo ay qabteen ciidanka iyo saraakiishooda Xasan Xuseen Xaaji wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya ayaa taliyaasha kale ee ciidamada dawladda wuxuu ugu baaqay inay ka qayb qaataan howlgalkan lagula jiro al-shabaab isla markaana la doonayo in looga saaro deegaano iyo degmooyin badan oo ku yaala gobolada dalka taliyaasha kale ayaa waxa uu ku booriyay inay iyaguna ka qayb qaataan howlgalkan mid lamida si dalkeena xor u noqdo cadow kastana aanu gacanta ugu dhigno waa inaan bilownaa howlgallo kuwaas oo nabadda dib loogu soo celinaya ayuu yiri wasiir Xaaji ayaa waxa uu ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed inay garab istaag u muujiyaan ciidanka dawladda si ay nabad ugu noolaadaan isla markaana dalku uu noqdo amnigiisa mid dib u soo laabta howlgalkan uu hogaaminayay taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa ayaa waxa ka qayb qaadanaya guutooyinka 3 iyo 4 iyo qaybta 27 ee ciidanka xoogga dalka commandoska Gorgor iyo sidoo kale booliska Hirshabelle howlgalladan ayaa noqday kuwii ugu waqtiga dheeraa ee laga sameeyay gobolka Shabeellaha Dhexe dawladda Soomaaliya ayaana guulihii ugu ballaarnaa ka sheegatay howlgalladii ugu dambeeyay ee gobolka laga sameeyay howlgallada ay wadaan ciidanka militariga Soomaaliya ee ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa noqday howlgallo galay toddobaadkii labaad oo xiriira waxaana saraakiisha ciidanka militariga Soomaaliya ay wacad ku mareen in deegaano badan ay sii gaari doonaan deegaano badan oo hore markii hore ay u maamulayeen al-shabaab ayaa waxa ku sugan ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaas oo dagaal adag kula wareegay meelaha qaarna si nabdoon ay ciidanka gacanta ugu dhigeen intii ay socdeen howlgalladan saraakiisha hogaaminaysa howlgalladan ayaa waxa ay soo bandhigeen hub iyo gaadiid ay sheegeen inay iska lahaayeen al-shabaab isla markaana ay ku qabteen dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Shabeellaha Dhexe tira qaraxyo oo xigxiga ayaa la beegsaday saraakiil ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya intii howlgalladan ay wadeen ciidamadii ka tirsanaa militariga Soomaaliya ee gaaray deegaano badan oo ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa xilligan waxay bilaabeen howlgallo miina baarisa kadib markii ay ka war heleen in wadooyinka qaar ee deegaanadii ay soo mareen in al-shabaab ay geliyeen miinooyin halkaas oo la doonayay in ciidanka lagu waxyeeleeyo markay ku socdaalayaan qarax sababay khasaare ayaa waxa uu ka dhacay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe wararkii naga soo gaaray degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay qarax miino dad goobjoogayaal oo ku sugan degmada ayaa inoo xaqiijiyay in qaraxan uu ka dhacay ka soo horjeedka iskuul uu ka socday imtixaanka sideedaadka ee dugsiga dhexe kaas oo ku yaala degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe qaraxa waxa uu ahaa miino nooca dhulka la geliyo waxaana ku dhaawacmay askari ka mid ahaa booliskii sugayay ammaanka gaar ahaan ilaalada ardayda imtixaanka galaysay sida ay noo xaqiijiyeen dadka goobjoogayaasha ma jiro wax kale oo khasaare uu soobay qaraxaas mana jirto cid si rasmi ah u sheegatay qaraxaas inay ka dambeysay inkastoo al-shabaab inta badan qaraxyo noocan oo kale ay ka geystaan deegaanadii degmooyin ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa gaaray iskuulka uu ka dhacay agagaarkiisa qaraxa waxayna sameeyeen baaritaano ku aadan dadkii ka dambeeyay qaraxaas inkastoo aysan jirin wax dad oo loo soo qabtay qaraxa ka dhacay ka soo horjeedka iskuulka uu ka socday imtixaanka
ciidamada booliiska ayaa si gaar ah loogu xilsaaray saraakiishoodaba sugitaanka amniga ardayda galaysa imtixaanadaas ayaana u qaybsanaa laba qaybood oo kala ahaa dugsiga dhexe iyo dugsiga sare waxayna ka dhaceen dhammaan magaalooyinka uu ka kooban yahay dalkeenna ciidamada booliiska ayaana si gaara waxay iskaga xilsaareen imtixaankii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kaas oo ay galayeen kumanaan arday Soomaaliyeed ciidamada booliiska Soomaaliya ayaana waxay ku guuleysteen in gabi ahaanba ay xaqiijiyaan amniga caasimadda intii lagu guda jiray imtixaanka dugsiga sare iyo dugsiga dhexe waxaana ardaydaas jawi nabadeed ay ku dhameysteen imtixaanadii kala duwanaa ay ku galeen caasimadda dalka dowladda Soomaaliya ayaana ku amaantay saraakiisha iyo sidoo kale askarta ka tirsan ciidanka booliiska Soomaaliya sida ay ugu guuleysteen wax ka qabashada amniga guud ee caasimadda intii uu socday imtixaanka dugsiga sare iyo imtixaanka dugsiga dhexe ee dalka kaas oo magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ay ku galayeen kumanaan arday Soomaaliyeed isla markaana qaarkood ay ka yimaadeen gobolada dalka madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sameeyay magacaabis cusub wareegto ka soo baxday madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxaa lagu magacaabay gudoomiyaha guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha injineer Cabdi Xuseen Sheekh Maxamed ayaa hore waxa uu noqday wasiirkii warfaafinta isgaarsiinta iyo boosada dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in wadatashi uu la sameeyay madaxweyne ku-xigeenka kadib markii uu arkay khibradda uu leeyahay hawshan uu Cabdi Xuseen u magacaabay xilkaas culus isla markaana laga doonayo in uu ka soo dhalaalo caasimadda Jubbaland waxaa ku sugan gaar ahaan xaafadda loo yaqaan Niyu Kismaayo barakacyaal ka soo laabtay xiriyaha qaxootiga ee dalka Kenya halkaas oo dib u dejin loogu sameeyay Axmed Madoobe ayaa kula dardaarmay mas'uulkan cusub in uu ka soo dhalaalo xilka loo magacaabay isla markaana uu noqdo mas'uul wax badan ka qabta arrimahaas injineer Cabdi Xuseen ayaa waxaa hor yaalla shaqooyin culus marka loo eego barakacyaasha ku sugan deegaanada maamulka Jubbaland kuwaas oo xilligan la ildaran xaalado kala duwan oo dhinaca nolosha ah isla markaana aanan haysan daryeel ku filan maamulka uu hogaaminayay Axmed Madoobe ee Jubbaland ayaa waxa uu yahay maamul aanan si gaar ah u eegin dadka barakacyaasha ee ku nool duleedyada Kismaayo iyo sidoo kale deegaanada maamulka Jubbaland waxaana inta badan Axmed Madoobe iyo maamulkiisa lagu dhaliilaa siyaasadda ay ku wajahayaan dadkaas dhibaatadu haysato ee ku nool deegaanada maamulka Jubbaland dad badan oo ka soo barakacay deegaanadii ay ku sugnaayeen oo iskugu darsantay abaare iyo colaado ayaa waxa ay ku sugan yihiin deegaano badan oo ka tirsan maamulka Jubbaland mana haystaan daryeelkii ay kaga baahnaayeen dowlad goboleedka Jubbaland magacaabista uu sameeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa waxa ay tahay mid aan wax badan ka bedeli doonin dhibaatada dadkaas ay ku sugan yihiin maamulka Jubbaland uu hogaaminayay Axmed Madoobe ma lahan qorshayaal gaar ah oo loo dejiyay dadka dhibaatadu haysatay ee ku nool deegaanada maamulka Jubbaland sidoo kalena ma lahan dhinaca horumarka tallaabooyin loo qaaday kuwaas oo waaweyn marka loo eego maamulka Jubbaland tan iyo markii uu ka jiro deegaanadaas balse madaxda Jubbaland ayaa waxay xoog saaraan dagaalka adag ay kula jiraan dowladda Soomaaliya madaxdeeda waxaana dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jiraan uu yahay mid ay gadaal ka soo riixayso dowladda Kenya isla markaana deegaanadaas xilligan si dadban kaga arrimisa ugu dambeynna dowladda Bahrain ayaa si adag waxay kaga hadashay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka dowladda Bahrain oo ka mid ah dowladaha Carabeed ayaa si kulul waxay u cambaareysay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee Sabtidii toddobaadkan ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka kaas oo geysay khasaare dhimasho iyo mid dhaawac oo soo gaaray dad rayda war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Bahrain ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkaas uu ahaa mid argagixiso isla markaana ay aad uga xun yihiin wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Bahrain waxay tacsi u diraysaa qoysaska dhibanayaasha dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed iyadoo u rajeynaysa caafimaad degdeg ah kuwa ku dhaawacmay weerarkaas fuliynimada ah ee argagixisada oo ka hor imaanaya qiyamka iyo sidoo kale mabaadiida ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Bahrain sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay inay xaqiijisay midnimada boqortooyada ee Soomaaliya dhammaan tallaabooyinka ay qaadayso ee lagula dagaalamayo ururada argagixisada ah iyo sidoo kale ilaalinta amniga iyo xasiloonida iyadoo ku celcelisay mowqifkeeda Bahrain ee diidmada dhammaan noocyada rabshadaha ah xagjirnimada iyo sidoo kale argagixisada dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in qaraxii ismiidaaminta ahaa ee dhawaan ka dhacay Control in ay ku dhinteen 2 ruux oo ku jiro ruuxii isqarxiyay iyo sidoo kale 23 ku dhaawacmay qaraxaas qaraxyada ay sameynayaan dadka isku